وحقاق داوديا سؤاشان RSD واجب مياه ويسونا نقطي إن بدنا يا اللي سوي دي RSD horta in la fahmo muhiim weeyaan maasha allah waana kaaga mahadcelinayaa su-aashaasi in badan aad isoo weydiisay jawaabteediina waan ku siin doonaa insha allah horta waa maxay RSD haddii group 5 aad apply garaynaysid inaad fahantid RSD-ga aad bay muhiim u tahay haddaba RSD-ga waxaa laga soo gaabiyey refugee status determination so determinationkaasi waa go-aan waa taqaanaan so waa interview go-aan lagaga gaarayo inaad qaxooti tahay iyo in kale inaad asylum tahay oo asylumkaagii la approve garaynayo in kale go-aan lagaga gaarayo waaye waxaana sameeya UNHCR ama wadanka markaasi aad ku sugan tahay hadba waxay ku xiran tahay wadanka aad joogto wadamada qaar UNHCR ma samayso I believe South Africa iyo Uganda waxaa sameeya wadanka ayaa sameeya ayaga go-aan ka gaara qofka inuu maaragtay asylum yahay iyo in kale oo asylumkiisa sax yahay iyo in kale meelo kalena waxaa sameeya UNHCR hadba waxay ku xiran tahay wadanka aad joogtid okay interview ayaa lagaa qaadaya waxaana kaa qaadayo UNHCR ama dowladda markaas aad la joogtid interviewgaas kadib bilooyin ayuu kaa soo maqnaanayaa ugu dambeyntiina waxaa lagu soo dirayaa emailkaasi wuxuu sheegayaa in lagu aqbalay ama in lagu diiday haddii lagu aqbalo oo ay noqoto sheekadaadii dhag then aqbalaadii ayaad haysataa waxaa tahay qof asylum ah oo UNHCR ama wadanka ay ogaadeen in asylumkiisa uu sax yahay intaasi markay dhacdo then waxaa imaanaya marka arrinta group 5ka iyo su-aashii ugu horeysay ee nana weydiiyey oo tan ahayd ayaa marka soo laabanaysa marka waxay noqonaysaa waajib miyaa marka markaas waajib ay noqonaysaa because approve-kii waa haysataa haddii aadan approve haysanin oo aad doonaysid in lagu xareeyo welcome call sidee lagugu xareyn karaa ma lagu xareyn karo marka registration formka oo aad wadanka ka haysato ama UNHCR aad ka haysato oo caddaynaysa inaad maaragtay asylum tahay ama warqadda RSD approvalka ayaa marka aad ku caawinaysa haddii marka aad registrationka haysanin RSD approvalka haysataa taasaa la isticmaalaya haddii kalena dee registrationkii caadiga ahaa ayaa la isticmaalaya marka dadka qaar waxay gacanta ku hayaan bahasha temka ah tem waxaa la lahaa waxyaabaha kumeel gaarka ah warqad approval ah ma haystaan laakiin waxay haystaan asylum oo maaragtay tem ah kumeel gaar ah ayay haystaan midda kumeel gaarka lama isticmaali karo sababtana waxay tahay weli diidmo iyo ogolaansho laguma soo siinin that's why aan group 5ka loo isticmaali karin marka haddii laakiin approvalka aa haysatid waa isticmaali kartaa haddii RSD formka oo approval ah aad haysatidna waad isticmaali kartaa ama registrationka haddaad haysato waad isticmaali kartaa su-aashaada inaan kaaga jawaabay ayaan filayaa dadka qaarna inay fahmeen RSD wuxuu yahay ayaan filayaa bal ha iloobin inaad share dhahdo like dhahdo followna ay soo saartid wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu